Gabadhan sanduuqii kartoonka ahaa ayaa dhacay oo ka dilaacay. Dhawaaqii hilibka barafaysan oo dhulka ku dhacay ayayna u maqlin xiritaanka albaabka. Sidaas ayay gabadhan yar Emily ugu xayirmatay qaboojiyaha keydka oo qabowgiisu ahaa -18. Iyadu markaas ma aysan dareemin. Kaliya markii uu maamulaha u damiyay dhammaan nalalka dukaanka ay Emily dareentay khatarta. Degdeg ayay u istaagtay. Albaabka ayayna garaacday iyadoo argagaxsan. Nalalka qaboojiyaha ayay shiday, balse markaas ayay ugu dambeysay inay aragto iftiinka banaanka. Maamulaha wuxuu ku mashquulsan yahay taleefankiisa uu ku hadlayay, wuxuuna gebi ahaanba ka warwareegay dhawaaq kasta oo dhacayay. Markii uu ka baxay moolka, weli taleefankii ayuu ku hadlayay. Emily si degdeg ah ayay u baartay taleefankeeda, balse nasiib darro waxay ku soo ilowday miiska dukaanka. Iyadoo ku jirta qabowga xad dhaafka ah, Emily quus ayay dareentay. Wax talana ma aysan haysan, laakiin ma rajo dhigin. Gaari yar oo xamuul ah ayay heshay, kuna garaacday albaabka. Si kastaba ha u garaacdee, albaabku ma furmin. Gacmaheeduse way dhaawacmeen oo jeexjeexmeen. Heerkulku hoos ayuu u dhacayaa. Emily gacmaheeda ayay marar badan isku qabatay, iyadoo rajaynaysa inay hesho kuleyl yar. Si kama ahna waxay taabatay tikidh filim oo jeebkeeda ku jiray. Saacadeedii ayay fiirisay. Bandhigii ugu dambeeyay wuu dhammaan rabaa. Saxan bir ah ayay qabsatay, albaabka ayayna u carartay. Saacaddana si joogto ah ayay u fiirinaysay. Markii waqtiga la gaaray, si xoog ah ayay saxanka ugu garaacday albaabka. Isla markaasna dadkii ka soo baxay shineemada ayaa dukaanka agtiisa soo maray, laakiin qof walba wuxuu ku mashquulsanaa ka sheekaysiga filimka iyo cashada. Qofna ma maqlin qaylada Emily. Markii dadka dhammaadeen, wiil yar ayaa soo maray, wuxuuna maqlay garaaca albaabka. Wuxuu u sheegay aabihiis, laakiin aabihii markii uu taleefan ka dhigay oo u yimi halkii saxankii ay gacanta ku haysay Emily albaabka ku garaacaysay ayaa dhacay. Gabadhii hore ayay u qabowday oo awoodii la dagaalanka ayaa ka dhamaaday. Fursadda badbaadada way dhammaatay. Mid mid ayay nalalkii moolka u dansadeen. Emily gebi ahaanba qaboojiyaha ayay ku xayirmatay. Saacadeedii ayaa shaqo joojisay. Hadda ma ogaan karto waqtiga. Waxay dareentay niyad jab, waxaana ka sii darnayd sanka ay dhiig ka keentay qabowga daran awgiis. Sidaas ayay xaaladdu ahayd. Waqti dheerna ma awoodo inay sii noolaato. Ayadoo cabsi badan dareemaysa, geeska ay isku duuduubtay. Wax tala ama fikrad aan ma aysan ogeyn inta ay noolaan karto. Gacmaheedii ayaa aad u qaboway. Barafkuna wuxuu bilaabay inuu ku fido gacmaheeda iyo cududeeda. Emily waxay isku qasabtay inay adkaysato. Waxay iska saartay dahabka dhegaha. Shaati khafiif ah oo boorsadeeda ku jira ayay soo saartay. Waa ayna kala jeexday iyadoo marooyinkaasina ku duuduubtay gacmaha iyo cagaha. Laakiin taasi kuma filnayn. Faraha iyo cagaha ayaa qabow dartii ka dilaacay. Iyadoo isku duuduubtayna maryaha bay sii fadhiday. Waqtigana intuu maray ma aysan garanaynin. Maalin kadib waxay garwaaqsatay in qabowgu ka imaanayo 2 marwaxadood oo waaweyn oo gudaha qaboojiyaha ku yaal. Markaasay mar kale is adkaysay. Kartoon ayay soo jiiday, waxayna u kala goysay 2 cad oo kartoon ah. Iyadoo jirkeedu dhaawac yahay bay jaranjaro fuushay. Dabaysha qabowga zaa'idka ah wejigeeda ayuu kala jeexay, sida mindida oo kale. Cirib taagan ayay kartoonka ugu xirtay marwaxadii hore, si taxaddar lehna sharooto ugu dhejisay. Hal qalad oo ay samaysay ayaa wuxuu ka dhigi lahaa inay dhulka ku soo dhacdo. Markii ay ku dhawaatayna marwaxadii labaad, kartoonkii hore ayaa soo dhacay. Markay qorshaysay inay ku celiso, lugaa u baxday. Dhulka ayayna si xoog badan ugu dhacday. Nasiib wanaag, Emily si dhaqso ah ayay uga badbaaday, laakiin cagta midig ayay ka jabtay oo uga dhacay qaanad gudaha fridge-ka qabowga ah. Dhaawacaas wuxuu ka dhigay xaaladda mid aad uga sii xun. Emily go'aan geesinimo leh ayay qaadatay. Si tartiib ah ayayna cagta u dhigtay inta u dhaxaysa 2 shelf. Si taxaddar leh bayna kartoon dhinacyada uga dhigtay. Neef ayayna gadaal u jiiday. Markaasay si xeelad iyo awood leh dib ugu celisay lafta jaban booskeedii. Waxayna la adkaysatay labadaba, qabowga iyo xanuunka. Maro ayayna cagta ku duubtay. Kartoon ayayna anqowga ka saartay. Sharootana si adag ayay ugu xirtay. Hadda ugu yaraan way istaagi kartaa xoogaa. Emily waxay isku dayday inay cunto hesho si ay u yeelato energy. Baradho jilicsanayd oo ku jirtay hadda waxay noqdeen dhagxaan adag. Doorasho kale ma aysan haysan marka laga reebo inay gidaarka iska fadhiisato, nasiibkeeduna sugto. Balse si aan la filan karin, jiir ayay aragtay. Cabsi ma qabin. Taa beddelkeeda, sanduuqii uu ku hoos jiray gudihiis waxaa yaalay shukulaato yar. Si degdeg ah ayay u cuntay, kaliya iyadoo helaysa tamar ay ku dagaalami karto si ay u raadiso fursado kale oo badbaado ah. Jiirka oo isna cunto raadinaya ayay fiirisay, waxayna u turtay cad yar oo shukulaato ah. Ugu dambeyntiina, labadooduba waxay wadaageen masiirka adag. Markaas heerkulka qaboojiyaha wuxuu hoos ugu dhacay -16. Haddii aysan xal helinna, hubaal way ku dhiman lahayd qabowga halkaas. Markaas ay Emily xusuusatay jantaha yar ee ku jiray boorsadeeda. Waxay bilowday inay gubto wax walba oo ay heli karto si ay kuleyl u hesho, xitaa waraaqaha codsigeeda fiisaha Canada. Taasi waxay ka dhigneyd inay diyaar u tahay inay ka tanaasusho riyooyinkeeda kaliya si ay u noolaato.
runtii heerkulka qaboojiyaha ayaa bilaabay inuu kaco. Jiirkii yara ayaa u soo dhawaaday isagoo ka faa'iideysanaya kuleylka, laakiin goor dambe qiiq madow ayaa qolka buuxiyey. Milly ayaa bilowday qunfac iyadoo ku sigatay inay ku dhimato qiiqa intaanu qabowgu dilin. Degdeg ayay u qabatay warqad kaartoon ah oo dabkii ku bakhtisay. Halkaas ay ku aragtay warqad xaaf gubatay. Dusheeda waxaa ku sawirnaa dhismo yar oo ku yaal meel barafaysan, gudahana diirmaad leh. Si lama filaan ah ayaa fikrad ku dhalatay. Iyadoo jirkeedu dhaawacan yahay, waxay isticmaashay kaartoon iyo caagag si ay u dhisto hoy yar. Dusha sare ayay kaartoon yar ku dabooshay, xitaa jiirkana gudaha ayay u ogolaatay. Halkaas ayay hoy ka dhigteen. Waxay dareensiisay xoogaa deganaansho, balse qabowga zaa'idka ah lama joojin karin. Wax walba oo ku hareeraysanna weli waa baraf iyo qabow. Ma aysan ogeyn inta ay halkaas ku sugnayd. Markay indhaha dib u kala qaaday, Milly waxay aragtay gacanteeda inay ku dhegtay dusha kaartoonka qabowga waalida ahaa. Waqti uma haynin fikir kale. Haddii ay sii sugi lahayd, ku deganaanshaha ayaa adkaan lahayd. Xoog ayay iska baartay, gacanteedana xoog ayay uga jiiday. Qaylo ayay bilowday xanuun dartii. Jiirkii gudaha ayuu ku dhintay qabowga zaa'idka dartii. Waqti dheer oo aanan dhaqdhaqaaq jirin kadib, xanuunkii ayaa ku kordhay. Maqaarkeedu wuu dildilaacay qabow dartii. Ma ogeyn intee la'eg ayay si adkeysan kartaa. Xilligaas ayay aragtay mar kale marwaxadaha qaboojiyaha. Bir tuubo ah ayay soo jiidatay, iyada oo gariiraysa ayay ku riixday gudaha si ay daboolka uga furto. Marar badan ayay isku dayday, ugu dambeyntiina way ku guuldareysatay inay daboolkii ka saarto. Haddii ay marwaxadaha joojiso, qabowgu wuu yaraan lahaa. Labadeeda gacan ayay tuubada birta ah ku qabatay, laakiin habkaasi uma shaqayn. Markaas heerkulku wuxuu noqday -17. Haddii aysan xal kale helin, halkaas ay ku dhiman lahayd qabowgaas dartiis. Marka hore waa ay fadhiisatay. Gacantii qabowgu ka dilaacayay ayay ku duuduubtay bac plastic ah. Dabadeedna jirkeeda oo dhan ayay ku duuduubtay bacdaas. Gacanta bidixna waxay ku qabsatay hilib barafaysan, iyadoo si adagna ugu jeeda marwaxadda. Xilligaasna Milly waxay u ekeyd geesi dagaal u soo baxay oo hadda soo baraarugay. Hilibkii barafaysnaa ayay ku tuurtay marwaxadda wareegaysa. Way la gaftay. Haddana mar kale ay isku dayday. Marar badan ayay tuurtay. Indhaheeduna waxaa laga arki karay geesinimo. Ugu dambeyn, iyadoo xooggeedii ugu dambeeyay isticmaalaysa, waxay hilibkii si toos ah ugu dhufatay marwaxadda koowaad. Markaan kalsoonideeda ayaa guul siisay, maadaama weli qabowgu jiray oo jirkeedu dilaaciyay, balse waxay heshay rajo yar oo muuqatay inay sii noolaan karto. Si ay u hubiso inaanay marwaxaddu mar kale wareegin, waxay ku cadaadisay hilibyo kale oo barafaysan oo aad u badan. Hadda hal marwaxad oo kaliya ayaa haray. Haddii taasna ay joojiso, fursad ay ku noolaan karto ayay haysataa. Laakiin xooggeedu wuu sii dhammaanayay. Tuuryo badan ayay seegtay. Ugu dambeyntiina daalkii ay daashay ayay dhulka ku dhacday. Maqaarkeedu wuxuu noqday guduud iyo dildilaac qabow dartii. Iyada oo xooggeedii ugu dambeeyay ka faa'iideysanaysa, waxay si daciif ah darbiga ugu dhufatay gacanteeda. Si lama filaan ah, farteedu waxay taabatay bool. Milly waxay soo bixisay birta timaha lagu xirto, iyadoo isku dayaysa inay furto. Ugu dambeyntiina daboolkii way furtay. Waxay ahayd marin baxsasho, laakiin awood ayay kaga baxdo ma aysan lahayn. Halkaas ayay saxankii ku garaacday in ka badan 2 jeer. Isla waqtigaasna, aabaheed oo si murugo leh u raadinayay ayaa si kadis ah meesha soo maray. Wuxuu maqlay dhawaaqa, wuxuuna u soo orday albaabka dabdaminta. Aabaheedu wuu sii dhaafi lahaa, laakiin goortaasi Milly gebi ahaanba waa ay tabar beeshay. Saxankiina gacanteeda ayuu ka dhacay, si qaylo dheerna dhulka ugu dhacday. Dhawaaqii ayaa aabaha dib ugu soo celiyay, maadaama uu aad ugu murugoonayay gabadhiisa. Wuxuu u sheegay in ilbiriqsi kasta qiimo u leedahay. Millyna dhulka qabowga ahaa ayay jiiftay iyadoo indho xiran. Goortaasna aabaheed ugu dambeyn wuu helay Milly. Sidaas ayaana lagu badbaadiyay gabadha qolka qabowga ku xirantay. Saxbiyaal muuqaalkeen maanta waa intaas. Haddii aad ka heshay, fadlan like noo saar, naguna soo biir mahadsanid.